runtu haba iska qaraar badnaatay walaalkeen kursigan uu u tartamayay maaha kursigiisii saxda ah ee uu u qalmay. dalkan uu rabaa inuu xilka ka qabtay maaha dalkiisii saxda ah ee uu xilka ka qaban lahaa, kamana qaban karayo inta uu walaalkeen qabyaalad iyo kicin shacab, dulqaad yari iyo been uu wado. Adeymahana ana idin haya oo hadda idin tusaya. hadda afeef waxaan kasii dhiganayaa dad baa ii soo qori doona wax kale ayaad ninkan ku ataagaysaa. daraad ayay ahayd tii aan kabtan ayuub aan ku haystay ninkan waa inaad ka hadhaan. haddana kabtan ayuub anaaba halkan ka raali gelinayo oo reality-ga ogaaday. 3 clip oo yaryar baan idin tusi doonaa, kadibna waxa aan anigu ka dhahayo ayaan ka dhigi doonaa, idinkana aragtidiina oo nadiif ayaad ila wadaagi doontaan. clipka koobaad waa kan bal ila fiiriya. ninka DFO xukumo oo jeerka ah ee soo baxay oo yiri markii la weydiiyay su'aasha sidee ninkan baan ku saartay oo yiri waxa kala tashtay qabiilo Soomaaliyeed dad imaamo masaajid culimo dad waxgarad oo Soomaaliya inuu yiri siyaasiyiinta Soomaalida la doortay Minnesota ayaan kala tashtay. tani waa mid ka mid ah sababahan idin ilaahay walaalkeen been ayuu sheegayaa waxa uu rabaa inuu inaga dhaadhiciyo mas'uuliyiinta dalka Mareykanku inay qof marka ay soo dooranayaan ama xil loo dhiibayo qabiilada Soomaaliyeed wax laga weydiiyo. Mareykanku xillimu Soomaaliya noqdo 4.5 sharciga la dhigi jiray laga ansixiyo kolka hore qofka qabiilkiisa la ogaada. xillima oday beeleed ama qabiilo Soomaaliyeed intii loo tago oo Mareykanku ka soo wareystaa qofka la dooranayo qofkan la dooranayn. dalkeenu joognaa Mareykan ba mise waa Soomaaliya? waa su'aal idinka idin weydiinayo. bal clipkan labaadna ila fiiriya. yuguna colaadinayo wax dadka qaar ay fahmi laayeen oo ay waastaa kaliya laga yaabo in qaarkood sida dadka aaminsan yihiin inaan in reer Muqdisho ah oo Muqdisho kimaan goormay ceeb noqotay caasimadda Soomaaliya wax laga faaran noqoto wax qof lagu dhaliyo waa ku faaraya inaan Muqdisho ku dhashay inaan nahay reer Muqdisho. tanna waxay maqraati ka tahay oo idin cadeynaysaa markaan idin leeyahay qabyaalad baa walaalkeen dilootay oo waxa la sheegay waxba ka jira. waxa uu ku leeyahay reer Muqdisho inaan ahay baa xilli igu diiday. tan reer Muqdisho ahaan way ka fogtahay isaga targetkiisu waxa weeyaan shacab kixin. marka uu ku leeyahay reer Muqdisho inaan ahay baa xilli igu diiday waa yacni dadkii reer Muqdisho ah iyo beelihii meelaha degayo kaca oo wiilkanagii baa la cunsuriyeeday dhaha waa si in direct ah buu qayladaan u dirsanaya. clipkan soo socdaan hadda idin tusi doonana waxaad ku arki doontaa isaga oo kicinaya shacabka Soomaaliyeed oo leh Soomaaliyay kaca markan qayladaan caadi ah ayuu si direct ah u dirsanaya. marka waxaan jeedinayaa in arintaas dadka Soomaaliyeed ka dhigayaan la aqbalin kooxo yar oo fikir qaldan aaminsan oo dadka Soomaaliyeed haddaba Soomaaliya ninka walaalkeena guuldarrada uu la soo kulmay waan ka xumahay, laakiin reality-ga ayaa waxa ay tahay uma qalmo kiiskan ama positionkan uu raadinayo. sababtoo dulqaad yari iyo qabyaalad iyo kicin shacab ayaa isugu tagay. dulqaad yari markaan ku leehayna ilhaan cumar intaasoo kun oo jeer baa la mucaaradayo la lahaa qaniisiin bay u ololaysaa oo Soomaali isku dayeen inay lugaha qabtaan xataa waagi dhaweyda la dooranayay. weligeed intay meel soo istaagtay ma ayna dhihin Soomaaliya waxa la igu eriyanayaa qabiil iyo saasa la igu eriyanayaa iyo Soomaaliya ka dulqaad yarina horta qofkaas uu yahay walaalkeen waxaan kula talin lahaa hab dhaqankan hadda ku dhaqmayso Soomaaliya ayaa wax lagu doortaa 4.5 iyo barnaamijyadaasi ay ka jiraan Soomaaliya aad oo si toos ah isaga soo sharax.